halkani waa warbaahinta Soomaaliya. Waxa si toos ah u daawanaysaa barnaamijka Faallada Toddobaadka anagoo ugu hadli doono waxyaabihii dhacay toddobaadkan kuwoodii ugu muhiimsanaa. Qodobada barnaamijka ugu waaweyn: bixitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya iyo cudurka coronavirus, qarax ka dhacay Somaliland, xaqiiqada dhabta ee diin cafinta Soomaaliya, iyo dagaalkii culusaa ee ka dhacay Beled Xaawo. waxaan idin soo gudbin doonaa ayagoo faahfaahsan anigoo ah Cabdiqani Maxamed Cali. Haddaba daawasho wacan. haddaan ku bilowno bixitaanka ciidamada Kenya ee dalka Soomaaliya, wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee Daily Nation ayaa ku soo waramaya in dawladda Kenya ay dhawaanahan kala soo bixi doonto ciidamadeeda dalka Soomaaliya. ciidamada Kenya ayaa ku soo biiray Soomaaliya 6 Oktoobar sanadii 2011. dawladda Soomaaliya ayaa go'aamisay in dadka ka imaanaya dalalka oo ka dilaacay caabuqa coronavirus aysan dalka soo gali karin muddo 20 maalmood ah oo ka bilaabanaysa maalinta safarkiisa. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed ayaa sababta go'aankaasi loo soo saaray ku sheegay inay tahay muddadaasi 20 maalmood ah baaritaano lagu sameynayo dadka soo galaya gudaha dalka. qarax ka dhacay Somaliland ayaa waxaa ku geeriyooday gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool ee Somaliland Xasan Sheikh. sababta geerida ayaa timid kadib markii gaarigiisa qarax loogu xiray gudoomiyaha. diin cafinta Soomaaliya, maalmihii dambe waxaa la isla dhaafayay diin cafinta Soomaaliya, inkastoo koox xildhibaan ah oo telefishinka Somali Cable lagu wareystay ay sheegeen inay waxba kama jiraan tahay dadkana lagu maaweelinayo. waxay kaloo sheegeen in wadamada diinta ku lahaa ay kaliya cafisay dalka Shiinaha, waxayna sheegeen in xilligii ay burburisay dawladii Siyaad Barre lagu lahaa lacag gaaraysa ilaa 2 bilyan. dagaalkii culusaa ee ka dhacay Beled Xaawo, ciidamada Jubbaland oo ay garab siinayso ciidamada Kenya iyo ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku hardamay magaalada Beled Xaawo, inkastoo looga adkaaday ciidamada Jubbaland lagana saaray magaalada Beled Xaawo ayagoo ka tilaabay xuduudda Soomaaliya wana baxay dhanka iyo Mandheera, iyadoo Soomaalida Mandheera ku nool ugu baaqeen ciidamada Jubbaland ee soo galay magaalada Mandheera inay ka baxaan magaalka maadaama ay dhib keenayso arrinkaasi, ayagoona sheegay inay taageerayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa halkaasi noogu eg barnaamijkeennii toddobaadlaha ah ee Faallada Toddobaadka ee warbaahinta Soomaaliya. haddaad ku cusub tahay kanaalka, ku soo biiro subscribe dheh, sidoo kale fiidiyowga like saar haddii aad ka heshay si ay noogu noqoto dhiirigelin.